بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أحبتي في الله waxaan rabaa kelimadan yartaa inaan uga hadlo saddex walxaato oo yaryar. marka koobaad horta ilaahay ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa bishii ramadaan na soo gaarsiiyey, dhexdeedana nagu soo daadihiyey, maantana na keena aakhirkeeda. maanta taariikhdu bisha ramadaan waa 30 oo bishii 9aad ah, sanadkuna uu yahay 1441 hijriya, u dhiganta bisha 5aad 23deeda 2020. waa waqti dambe oo haddaba qoraxdii ay dhici rabto markaan kelimadan yartaa sheegayno insha allah. waqtigii maadaama uu iska dhow yahay, waxaan rabaa kelimaadka yarkaa inaan uga hadlo 3 arrimood. arrinta koobaad, ciidulfitriga, sadaqatulfitri la bixiyo iyo ciiddii la dukanayey, iyo khalad yar oo dhacay maanta islaamka ku dhacay soomaaliyeed, cid kale kuma dhicin. maxaa yeele waxaan ogahay meel aan ka shaqaynayno shaqo yar ay ka socotay, dadka aan soomaali ahayn 3 ay ahaayeen, ma aysan afurinin. marka koobaad aayaddaas hadda aan ku furfurtay, nabiga markii la su-aalay calayhi salaatu wasalaam, nabigu waxuu noo sheegay inay ku soo degtay zakaat alfitri, inay ku soo degto nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam. zakaat ulfitri, cabdullaahi bnu cabaas wuxuu yihi farada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam sadaqat alfitr duhratan lisaa'imi min allagwi wاrafath wa ducmatan lilmasaakiin faman adaaha qabla salaati fahiya zakaatu maqbuula waman adaaha bacda salaati fahiya sadaqat min asadaqaat, ou kamaa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam. abi daa-uud iyo keyrkii ayaa soo saareen. waxuu nabigu yihi oo cabdullaahi bnu cabaas uu leeyahay, nabigu wuxuu waajib yeelay zakaat alfitri. xikmada loo waajib yeela marka maxay tahay? waa khalalka iyo dhaqarka ku dhacay, nabarka ku dhacay soonkaadii ayay duhri u tahay, min allagwi warafath, warka laaqiga ah, fadhi ku dirirka ah oo kaa dhacay, iyo afxumooshada nuuc walboo loo fasiraba waa xikmad. xikmadda labaad, ducmatan lilmasaakiin, masaakiintana quud ayay u tahay. maxaa nabig wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, dadka masaakiinta maalintaas ciidda wareega ay wareegayaan ka joojiyo, ka celiya, macnaa wax siiya weeyaan hadday joogsanayaan. nabigu waxuu sii raacsiiyo u yihi, qofkii bixiya intaan salaada ciidda la aadin bixiya waa zake la aqbalay, laakiin qofkii bixiya ciidda gadaasheed bixiya, sadaqada ou bixinayo ayay la mid tahay. waxaa la waajib yeelay zakaatulfitri walaalayaa, saad ogtihiin hijriyada maanta 1441 markay 2 aheyd, 2 maalmood ayadoo bisha ramadaan ka dhimata ayaa la waajib yeelay. ramadaanka waajib yeelidiisa ayadu way wada socdeen, maxaa kalama aysan harinin, ilaa intaa ayay soo socotay. yaa waajib yeelay? nabigeena calayhi salaatu wasalaam. maxaa la waajib yeelay? yayse ku waajibaysaa? yayse ka waajibaysaa? waxay waajibaysaa oy waajib kugu noqonaysaa galabtoo kale markii loo jeedo bisha, saacadda hadda aan joognoo kale, ciddii ramadaan kulli soo joogtay oo ramadaan kulli soo soontay, hadday saacaddan dhibato qofkaa lagama rabo. amaa qofkii saacaddan iyo wixii ka dambeeya ku dhow dhasha, ama xaaskaad soo arooso, haddaad nin aad tahay, sakadaasu way ku waajibaysaa. maxaa yeele juz oo ka mida ramadaan iyo juz ka mida bishii shawaal ayuu qofkaa isku helay.
waqtiga ayay waajibaysaa. waqtuljawaaskuna waxaa weeyaan bishu markay dhalato waa iska bixi kartaa wixii ka dambeeya. si kale waa la samayn karaa 2 maalmood markay ka dhimanta bisha ramadaanna taqdiim waa lasii samayn karaa. fadligeeduna waa midaan sheegnayo intaan salaada ciidda la aadin in la bixiyo ayaa fadli badan. salaada ciidda laga daamariyaana waxaa weeyaan waa karaahi. maalintaa ayadaa ciidda laga daamariyaana waaba xaaraanba taatanba. yay ku waajibaysaa calى الذakri والأnثى والxuri والcabdi والصaغيiri والkabiiri min almuslimiina. riwaayad kale calى الnaasi waxay ku waajibaysaa calى naasi markii la yihaah waa axadka asaga inuu bixiyo laga rabo weeyaan oo mas-uulka ah. can idakari markii la yihahna bimacnaa can ufasiro dadkii laga bixinayo weeyaan, dadkii laga bixinayey. dakarkaa laga bixinayaa, unthaa laga bixinayaa, xurkaa qofka bilistaa laga bixinayaa, addoonkaa laga bixinayaa, qofka weeyaan laga bixinayaa, qofka yaraa laga bixinayaa, ilaa kin qeydku ou yahay oo min almuslimiina. kufaar maya ma laga bixinayo. kufaarka hadduu qaraaba kaala dhexayso waxaad haysto waad ku xariiri kartaa, waa siisa kartaa, ilaa kin wax zakaa ma sii kartid. maxaa la bixinayaa marka waaye? waxaa la bixinaya waa طacaam. nabigaa noo sheegay calayh الsalaatu wasalaam saacan min tamrin aw saacan min saciirin saacan min qamxin saacan min طacaam saacan markii tiraaba sidii caan loogu dabamariyo zabiibkii lagu daro. alxaasi waxaa la bixinaya waxa weya walaalayaal waa quutulgaalibka, waxa la cunayo wixii meeshaas ugu qaalibsan oo aqlab ugu ah oo lagu yaqaano, oo markay 10 qoys meel degan tahay oo isku leebal uhu 7 ama intay cunto ama 6 intay cunto kaleeto ayaa qaalib loo yaqaanaa. kaas ayaa la bixinayaa. ma la bixinayo lacag, maya lacag ma la bixinayo. cid qabtaana ma jirto. nabiga kama sugnan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi. lacagaha midda fadli badan nabigu asaga ay asxaabtaa lahaayeen. dahab iyo fida ayay ahay, miyay bixiyeen? waa maya. haddaad tira abu xaniifa ogol dee wixii hadiga nabiga khilaafa lama raac walaalayaal. haddaad aragto marka qofkuu iftoohayo ku dhahaya lacag dhiib ku dhahaya, asagaa danaysaa mooyaane adiga kuuma danaynin. asaga ayaa danaysaa mooyaane adiga ma kuu danaynin. maxaa yeelay in qofku ku yidhaahdo nabigu ma ogeyn oo asxaab ma ogeyn, markii khayr la sameynta lagu soo daliishado asaguna waxa uu la yimaad khatarkeeda ayay leedahay. saasay waajib ku noqonaya. waqti ayaa la bixinayaa. waxay ku waajibaysaa marka dadka adiga biilkooda uu kugu waajibay oo usuusha iyo furuucda ah, aan wixii ku dhalay aan wixii adiga aad dhashay. intaasay adiga inaad bixido. maxaa kaa waajibaya marka? wixii marka aad haysato. qof kasta waxaa laga rabaa inuu bixiyo suus, inuu bixiyo oo u dhigmo markii 2 kiilo iyo bar garaam, 2 kiilo iyo bar oo wixii uu bixin dacaamka inuu bixiyo. iyo wixii hadduu 100 garaam ka dhiman burabalaan ma lahan. 3 kiilo hadduu gaarsiina waa khayr batan mooyaano wax burabal aydan ragaa dada xataa qaba. laakiin sida raajixa waxaa weeyaan in mudku ou yahay 600 oo garaamo ou yahay. 4 meelood oo milixa marka meeqa weeyaan? markay noqoto waxaa weye 2400 oo garaamo. 100 ku darso 2 kiilo iyo bar ayay ku noqonaysaa. waxa la bacaana waa dacaamkaas. waxa laga baxaana waa dadka adiga xuquuqda kuu leh, hadday usuul yihiin iyo hadday furuuc yihiin labadaba. waa sida qaalibka marka lagu sheegayo. balse waxaa jira qof nafaqa kugu leh oo biilkooda kugu waajibay, sakadiisuna isan kugu waajibin. qof waxaa jira biilkiisa uusan kugu waajibin, sakadiisuna ay kugu waajibtay. mathalan islaanta aad qabto hadday ay tahay ahlu kitaab ay tahay oo gaalo ay tahay, biilkeedu waa kugu waajib, laakiin zakaatulfitri ka bixin. maxaa yeeley min almuslimiina ayaa la waayey. taas waa iska cadda. qofka lagu leeyahay asagana sida qaalibkaa lagu leeyahay biilkiisu kugu waajibi maayo, laakiin sakadiisa kugu waajib. maxaa weeyaan? islaantii aad qabta ayaa lagu wadiya waxa layahay shubhul wadiyaa ku dhacay. intaa la joojinayo saysan maakal ugu dhicinin biil kuuma la, laakiin zaka ayay kugu leedahay. midda mudeecada oo wanaagsan oo khayrka qabtaana oo khayrka badan qabtaa oo keen iyo kaalay iyo kac iyo kata kaa yeelaysana oo xukunkeeda sidaas ou yahay, taa ayada biilkeeduna waa kugu waajibayaa, sakaduna waa kugu waajibaysaa. amaa midda nushuusada oo mukhaalifada ah oo keen iyo kaalay iyo ka taga kac midna aan oqoonin, warba aan kaa maqlaynin, biilna kuguma lahan,
zakana ma kugu lahan ma laga bixinayo. intaas kale waa laga bixinaya, addoonkaad ka bixinaysaa, ilmahaad ka bixinaysaa. qofkii marka aan haysan ka waran, qofkii aan haysan dhaqarkii soonkiisa nabarkii ku dhacay hadduusa ilaahay u dhiibinin oo xoola aan loo dhiibinin waxaba ilaaha ka tirtiraya jala wacalaa. walaalayaa looma daynto, dadka looma baryo macnaa fitraan rabaa halaysiya lama yiraahdo. waa kow, daynaan u rabaa halaysiya lama yiraahdo. haddii aadan haysan cid ku haystaa ma jirto. bal iska dhaafa maalintaas ciidda la joogo haddaad kabacdi tanaad noqoto maalqabayn aad noqoto xataa ma lagaa rabo, mana loo daynto, leesmana kulfeeyo. taa haddaan u bax walaalayaal, ciidda waxaa weeyaan caawa waan sugaynaa insha allah 100%. tegidda aan sugayna marka maxay taha? qoraxdu markay dhacdo bishii la arko takbiirtaa la bilaabaa, siiqadii loogu talagalay ayaa la akriyaa, gurigaa lagu akriyaa, wadadaa lagu akriyaa, suuqaa lagu akriyaa, masjidaa lagu akriyaa, biayi makaan intaan musqul aan ka ahayn inaad akriya takbiirta aad wado ilaa subaxii intii imaamku ka gela salaada ka soo gelayo. inkastoo hadda cudur badan ou yimaaday oo meel lagu dukada khatar ay tahay, guryaha lagu dukanaya. maxaa yeele faradkii asaga ahaya guryaha lagu dukadaaya sunna gay joogtaa, ayadana waa kasii waa ka owleysanta weeyaan, waa ka owleysanta. qofkii marka aadi jira masjidka oo aadi jiray haddii laga xayiro laga cayriyey ajirkeedii ayuu iska leeyay, waxba ka hadlaayan maayaan. guri ayaa loo dukanaya, takbiirta ayaa la qaadaya. habeenka asaga waa habeen la rabo in la nooleeyo walayaal. habeenka ciidda waa in la nooleeyo, maxaa yeele bisha ramadaan oo khayrka badan habeen walba 600,000 oo naaru u waajibtay ayaa naarta ilaahay ka xoreeyay jalla wacala. caawoo kale markii la gaarana intii lasoo xoreeyey ayaa lagu dhufanayaa, intaa ayaa la xoreynaya. marka in caawoo kale laga faa'iidaysto oo habeenka ciidda la nooleeyo ayaa laga maarmaana. walaalayaal ciiddu waxaa weeyaan labada ciidood oo islaamka ilaahay siiye weeyaan, labada ciidood oo islaamka ilaahay siiyey. marka maxaa laga rabaa? marka maxaa sunno ah? waxaa sunno ah subaxii salaada inaan la boobsiin. macnaa salaada ciidda ayaan ka wadaa, salaadood 2 ragcaa la dukanaya, wax kale ma la dukanaya, 2 kaliya weeyaan. in la boobsiya lama rabo, waa in barqadii xoogaa la gaarsiiyo. sababta ay tahay qofkii soomanaay ayaa waxaa la rabaa in qofka asagu wax uu soo dhadhamiyo. sida fadliga badan maxaa weeyaan, waa inuu tamar uu soo cuno, watar u cuno, 3 uu ka bilaabo waxay ka sare ay noqoto. ama qofka hadduu timir oo waayo waxyaabaha macmacaan ayuu taabanaya. waa hadigii nabiga sala allahu calayhi wasalam. sunnada maxaa ka mid a? inaad wadadii aad martay markaad u socota meeshaad ku duka laheyd inaad hadhow aadan ku soo laaban. cilooyin fara badan sababteed meeshaa wadadaas marayso in tafaa'ul ay noqoto, ood ula jeedo xaalkaad ku sugneed in ilaahay kaa bedelo, iyo waqtiga hadda lagu jeedo difaac ay noqoto. haddii cadow wadada kuu geli lahay aad soo wareegto meel kale soo marto ayadana faa'iido weeyaan. walaalayaal salaadu waxa weeyaan waa 2 ragco. kayfiyada loo dukaan waxa weeyaan takbiir ay leedahay, allahu akbar ayay leedahay. ragcada hore waxa weeyaan 7 maa la kibaaranaya, oysan ku jirin midii koowaad ood ku xiratay allahu akbar aad tiri kuma jirto. marka maxaa laakiin la hilmaansan yahay loo baahan yahay nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam. waxaa ka sugnaatay bayna kulli takbiiratayn inaad tiraahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar subxaana allah oo dadka aad maqashihaynin allah. 3 markaad tiraahdo aad la imaanaysaa. ragcada koowaad 7 weeyaan, ragcada kaana waa 5 oo midaad ku kacaysa aysan ku jirinin. taa markii ay dhacdo hadhow khudba ayay leedahay, waa markii jamaaca lagu dukanayo. ama markaad guriga ku dukanayso wax khudba lagaama rabo. walaalayaal sida salaadu sunno u tahay ayaa khudbadana sunno u tahay. maalinta ayada waa maalin farxadeed weeyaan. farxaduna ma ahan inaa cayaari ku farxda maahane, farxaddu waxa weeyaan inaa ilaahay ka baqo subxaanahu wa tacaala, waa ina ahl ka farxiso, waa ina ciyaal ka farxiso, waa ina farxadoodun ay ahaato wax ilaahay raadi ka yahay, aysan noqon wax isaaf aysan noqonin. taa haddaan ugu baxo qodobka 3aad, walaalayaal maanta qalad badan ayaa dhacay. saaad og tihiin caalamul islaami oo maanta kulligiis uu sooman yahay ayaa koox yar oo soomaali kamiduhu ay tiraahday maanta annagu waa ciidaynaa. walaala arrinka qalad weeyaan. adigii shala oran jiray oo dhihi jiray caalamka islaamka ayaa furay ama soomane maxaa kaa reeba dhihi jiray inaad maanta ka hor marto aadna cid ku taageerta aada weyso, walaal khatar weeyaan. ragga falankiyiinta way arkeen kulba way arkaraan, waxayba sheegeen shala galab oo kaleeto inaysan dhici karin Afrika iyo meel lamida inaan bilba laga arki karinin. waxaa laga yaabaa hay yiraahdeen oo nin weyn uu yiraahday in qarbiga xidig yar oo ku jira in loo jeeday, waa suuragal in loo jeedi karo
ilaa ka wax bilo dhici kartaa qatarka ay leedahay bal iska dhaaf galabtaaba sidii loogu jeedaa iska maan dhib bada haysaa meelaha gabal qatar weeyaan walaalayaal dadka marka lagu leeyahay nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam suumu liru'yatihi wafdiru liru'yatihi bisha arageeda ku afura arageedana ku sooma marka kooba iyadoo soonka loo dadaalahayo hal qof hadduu sheego oo muslimu waa laga yeeli oo la aqbalayaa ama marka dambe iyadoo haddaan soon loo dadaalayo marka bisha shawaal soo gelayso laba qof ka yar lama aqbalo waa in laba ay mara kacdo ay tiraahdo annagaa aragnay yaa ilaa kiin taskiyeynaya waxaa taskiyeynaya qofka ahalka u leh oo qaadiga ah oo magacaaban qof shaksiya ama wadaada ama aqoonyahana ama nabadoona ama wax rab ha ahaadee isagoo awood uma lahan isagoo awood waxa uu leeyahay haddii wax la sheego hadduu iska rumaysto inuu isagoo la yimaado balse inuu inta issoo taaga cilaamiyo oo yidhaha berri waa ciid ama berri waa soon waa la go-aamiye ou yidhaahdo arrinkaas khatar weeyaan qofkii sidaas sameeya waxaan leeyahay waa ilaahay weyn ka cabso dad badan oo soomi lahay soonkooda ha u baas bixin dad badan oo afur laha afurkooda ha u baas bixin ilaahay weyn ka cabso adiga dadka xilkaama saara qof walba xil naftiisa ka saaran tahay qofku madaxweyne ma ahan macnaa amiir weyn ma ahan imaamul acdam ma ahan qof walba ina ummad qof walba dembigiisa kiisa ayaa ugu filan walaalayaal qof walba dembigiisa kiisa ayaa ugu filan midkaa lama qaadi karo tan kaleeto dadka bini aadanka ah haddaad tiraahdo qofaa hadla waxa uu leeyahay maya qofku haddii ay dhacdo oo meesha dhib ou yimaado oo maalin aan soom ahayn aan soon waayna la yidhaahdo ama maalin soonna la cunsiiyo qofkii sheegaa dembiga iska leh maya sax maahan cid ku qasbata ma jirto qofkan wau hadlay cid uu ku qasbayaana ma jirto cid biyo afka ku gelisana ma jirto cid ku qasbatana macaa ma jirto dembiga ada iska leh qof walba waxaa laga rabaa inuu cibaadadiisa ilaahay keligii hortegayaa wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati fardan cid kale kulama socoto inay cibaadada aad sugato waktiga hadda lagu jirana maxaa weeyaan waa waktiga sidiisa qof walba la yidhi qof walba madaxaada mayrax ku duubo qof walba aduu isku filnaaw adiga ishag waktiga macnaha wakti ma wakti qof walba wakiilsa ma jirto waxaan idin leeyahay hal qof oo hadduu maanta 100,000 oo doolar ou badeeco kaa gato ee ou ku yidhaahdo $1 iga dhimana beri iga sug qof aadan ka yeelaynin inaad cibaadada u aamintaa walaalayaal been weeyaan sax ma ahan taaso sax ma ahan waxaan kaga rabaa in la ogaado qof walbaa mandiqada uu joogo ayuu ku xugun yahay qof walbaa markaa mandiqada uu joogo ayuu ku xugun yahay mandiqadaas meesha uu ku nool yahay waxay ka tahay inuu raac ku qasban yahay inaad tiraa ma ahan adigoo soonka dhanba 4 maalmo 4 saac kaliya cunto ka cunaaya inaad tiraa Soomaaliya la afuraya oo Yurub jooga inaad tiraa walaal sax ma ahan haddaad la afurayso markay afurayaan la afur barbalaha mal adigu taala qoraxda halka ku joogta ayaga la afur suuragal miya maya hal la ciidin marka waayahay hal la ciidin walaal waxaan leenahay hambaliyo ayaan leenahay insha Allah hambaliyan ku soo gabagabeynaya waxaan ku jirnaa maalin weyn oo bil Ramadaan aakhir ay tahay oo rajayayno ciidi kumayaalka Ilaahay oo naxureeyo oo Ilaahay oo xureeyo inuu nuguda Ilaahay garjeen subhanahu wa ta'ala islaamka marka waxaan leeyahay biri oo kaleeto mar walba oo kaleeto dadku waa tabaalaysan yihiin qof walba Ilaahay wuxuu dhiibow ha ku gaabsanin zakaatul fitr ha ku gaabsane dadka deeq qaraabada waxsi in adeerka waxsi kan ku dhow waxsi kan ka koray waxsi dadka baahan qoodi qof walba waa xal rabaa in tacaawun la sameeyo oo ay wax ka bedesho farxadda aad farxaysaaho ee noqoto mid kugu keenta inaad waxaadii bixido oo ummadii aad macna muwaasaad keento ummadda aad deeqdo macna wax siido taas ayaa laga maarmaana waxaan dardaarmaynaa insha Allah ta'ala midka qof kastoo naga miduna haddii Ilaahay u dhameeyo cid u dhameeyo inaanan hilmaamin 6 maalmo oo Shawaal nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qofkii bisha Ramadaan sooma thumma atba'ahu 6 min Shawaal فكأنما صام الدهر qofkii bisha Ramadaan sooma ka bacdi raacsiya 6 maalmood oo bisha soonfur raacsiya qofka wuxuu la mid yahay asagoo sanadka kulli soom ayuu la mid yahay bal fiiriya maxay man jaa bil hasana falahu 10 amthaliha taas baa loo jeeda weeyaan marka qofku inuu maantaas ku xijiyo oo maanta uu ciido ku xijiyo iyo inuu maalmo u dhaxaysiiyo iyo inuu macna isku xijiyo waxa problem ma lahan laakiin waxa la rabaa inaan uu soonto si ajirku u hesho hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh